waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xogaan kaga hadli doono qaar ka mid ah fanaaniinta ugu caansan Bollywoodka ee haysta diinta Islaamka ama fanaaniinta muslimiinta ee ugu caansan Bollywoodka balse intaan u guda galin muuqaalkayga waxaan ka codsanayaa inaad janaalka subscribe inoo saarto haddii aad ku cusub tahay weeyaan haddii aad hore noola joogtana muuqaalkani like inoo saar sii share garay oo la wadaag asxaabtaada wixii ay qabto commentiga hoos inoogu reeb soona dhawaada saaxiibayaal sidan ka warqabno shirkadda caanka ah ee Bollywoodka waa mid kamid ah shirkadaha aflaamtooda aadka looga xiiseeyo dunida Soomaalidu saxaabo u badnaadaan waxaa jira Soomaali badan oo aad u xiiseeyaan daawashada aflaamta Bollywoodka haddaba saaxiibayaal maanta waxaan idin wadaagi doonaa fanaaniinta ugu caansan Bollywoodka ee haysta diinta Islaamka waxaa jira sanado hore ama aan dhahay bilowgii xilligii shirkadani Bollywoodka ay carcarka ahayd ama cusbeed waxaa jira fanaaniin muslimiin ah oo heesaha inta ugu badan ku luuqeyn jiray markii timaadana sagaashameeyadiina ay jireen fanaaniin kale oo muslimiin ah oo inta ugu badan heesaha aflaamta Bollywoodka qaadi jiray sanadihii dambana waxaa soo baxay muslimiin badan ama fanaaniin muslimiin ah oo caan ah oo shirkadani magacii mansab iyo maamuusba ka gaaraan dhahay saaxiibayaal haddaba waxaan idin wadaagi doonaa qaar ka mid ah fanaaniintaasi haysta diinta Islaamka fanaanka ugu horeeyaan ku bilaabi doono waa fanaanka da'da yar ee ninka lagu magacaabo waxa weeyaan Aatif Aslam fanaankan Aatif Aslam wuxuu ka mid yahay saaxiibayaal fanaaniinta da'da yar ee Bollywoodka sanadihii ugu dambeeyay aadka loo jeclaystay heysiisa fanaankan Aatif Aslam waxa weeyaan Pakistani weeyaan oo Pakistan ayuu u dhashay laakiin inta ugu badan waxa weeyaan heesaha Bollywoodka ayuu ku luuqeeyaa haba ugu badnaadaan aflaamtii sanadihii ugu dambeeyay heesaha aadka u macaan badan ayuu ka qaaday ninkan waxaa leesla barbar dhigaa ninkan iyo ninka lagu magacaabo Ajit in ay yihiin labada fanaan kaliya ay sanadihii ugu dambeeyay Bollywoodka loo aadka heesahooda loo jeclaysto marka ninkan lagu magacaabo Aatif Aslam waxa weeyaan nin muslim ah inta ugu badan ku luuqeeya heesaha Bollywoodka sanadihii dambena aad loo jeclaystay heesiisa saaxiibayaal sheekadan qofka labaad ee taabanaysa waxa weeyaan fanaanka caanka ah ninka lagu magacaabo Adnan Sami fanaanka lagu magacaabo Adnan Sami waxa uu ka mid yahay fanaaniintiisa dhamaadkii sagaashameeyadii soo caan baxay oo Bollywoodka heesaha inta ugu badan aflaamta ka qaadi jiray waxaa jira heeso badan oo fanaankan ku luuqeeyay Soomaalidu ay yaqaanaan waxaan ka xusi karnaa heestii caankeeda oo gina dilgina Akshay Kumar u qaaday ninkan codkiisu waa uu guuxaa Akshay Kumar markay timaado nolosha dhabta waa nin codkiisa guuxa sidaas darteed heesaha ugu badan ee Akshay Kumar ninkan ayaa u qaadi jiray tusaale filimkii ajnabi heesta u dambeysa oo asigii Babisha Bazu oo Mehbooba Meri Mehbooba waxaa qaaday ninkan Adnan Sami Zinagi Habibi Sinago Awara Bagal Dewana ku jirto ninkan qaaday heesta hadda aan sheego dirigina dilgina asiga qaaday heesa badan oo Akshay Kumar uu qaaday ayaa jira oo jilay laakiin fanaankan Adnan Sami uu qaaday marka fanaankan asigana waxa weeyaan Pakistani weeyaan laakiin shirkadda caanka ah Bollywoodka ayuu heesa inta ugu badan heesaha aflaamta kaga qaadi jiray horaantii qarnigii 21 saaxiibayaal fanaankan Adnan Sami waa nin muslim ah saaxiibayaal sheekadan qofka saddexaad ee taabanayso waa asigana fanaanka lagu magacaabo ama waa mid kamid ah fanaaniinta da'da yar ninka lagu magacaabo Armaan Malik weeyaan Armaan Malik asigana wuxuu kamid yahay fanaaniinta da'da yar sanadihii ugu dambeeyay heesiisa aadka loo jeclaystay ninka lagu magacaabo Armaan Malik waxaa jira dadyo badan oo dhalinyarada haba u badnaadaan oo heesaha Bollywoodka sanadihii dambe aadka u xiiseeya ninkan codkiisana aad u jecel ninka lagu magacaabo Armaan Malik asina wuxuu ka mid yahay fanaaniinta da'da yar ee muslimiinta ahi Bollywoodkana ka xamaasha sanadihii ugu dambeeyay heesiisa aadka loo jeclaystay saaxiibayaal sheekadan qofka kale ee taabanaysa ama qofka afraad ee taabanaysa waa fanaankii sagaashameeyadii caanka ah ninka lagu magacaabo Anu Malik sidoo kale ninka waa muusigiiste marka ninka lagu magacaabo Anu Malik waxa weeyaan adeer ayuuna u yahay wiilka aan ka soo hadalnay ee Armaan Malik markaan ka hadalna Anu Malik heeso badan oo caan ayuu ku luuqeeyo waxaa kamid ah heesiisa aan ka soo qaadan karnaa wajihi bilin laftirban heesta ku jirta filimkii laba Salmaan Khan jidwa oo kale ninkan heeso badan oo ku luuqeeyaa jiro aan xusi karin oo caan ah Soomaaliduna ay aad u yaqaanaan xilligiisa shaleemooyinka masagaashameeyadii markii la eego aflaamta shaleemooyinka laga daawan jiray ayuu ninkan heesiya inta ugu badan ku luuqeyn jiray laakiin wuxuu caan ku yahay ninkan inuu sameeyo muusikada ama muusik sameeyo weeyaan sidoo kale composer weeyaan ninkan lagu magacaabo Anu Malik marka asigana wuxuu ka mid yahay fanaaniinta heesta diinta Islaamka ama fanaaniinta muslimiinta ay saaxiibayaal sheekadan qof kale ee taabanaysa waa fanaanka ugu taariikhda weyn markay timaado Bollywoodka
ninka lagu magacaabo Mohamed Rafi weeyaane. Mohamed Rafi waxa weeyaan fanaaniinta laf dhabarka u ahaa ee Bollywoodkani maanta meeshan soo gaarsiiyay ayuu qayb ka ahaa. ninkan 70-meeyadii 60-meeyadii eeriyadeedii 80-meeyadii ayuu caan ahaa, waana ninka ugu heesaha badan taariikhda markay timaado shirkadda caanka ah ee Bollywoodka. dhanka ragga hablaha waxa weeyaan oo kaliya markay timaado waxaa u heesa badan gabadhii hadda geeriyootay ee Lata Mangeshkar. marka ninka lagu magacaabo Mohamed Rafi waxa uu ka mid yahay fanaaniinta muslimiinta ah, weliba fanaaniinta soo xajiyay ayuu ka mid yahay Mohamed Rafi. waxa weeyaan asigana waxa uu ka mid yahay fanaaniinta ugu caansanaa ee Bollywoodka soo mara saaxiibayaal. tusaale haddana fanaaniinta kale ee muslimiinta ee 90-meeyadii caanka ah markaan eegno waxaa ka mid ah ninka lagu magacaabo Atif Raja. asigana waxa uu ka mid yahay fanaaniintii 90-meeyadii caanka ah. inta ugu badan heesaha filimka ama aflaanta uu sameeyay Mithun Chakraborty ayuu ninkani kaga soo muuqan jiray. ninka lagu magacaabo Atif Raja heesaha ugu badan ee Soomaalidu yaqaanaan xilligii Shaleemooyinka waxaa ka mid ah heesaha waxaa ka mid ah Ishq or Biarika oo filimkii Shabad ku jirto Mithun Chakraborty iyo sidoo kale Jayka Sharif, ama hees hadda idin muuqato weeyaan ama sawirka hadda idin muuqda. heesaha kale waxaa ka mid ah oo fanaankan ku luuqeeyay Karlo Biari oo ku jirta heestii Jandaal ama Mithun Qabuuraha waxaad u taqaanaba. ninkan heeso badan oo aflaamta Mithun ka qaaday sida filimkii Mardi ahay iyo Marajo kale ayuu heesa ka qaaday. marka ninkan lagu magacaabo Atif Raja asigana wuxuu ka mid yahay fanaaniinta muslimiinta ah ee soo mar shirkaddan caanka ah ee Bollywoodka. aflaamo badan oo xilligii 90-meeyadii heesaha ka qaaday saaxiibayaal. fanaaniinta kale waxaa ka mid ah fanaan lagu magacaabo Nusrat Fatah Ali. asiguna waa fanaan yani Pakistani ah oo Pakistan ayuu dhashay laakiin Bollywoodka ayuu caan ka yahay. heesihiisana inta ugu badan Bollywoodka ayaa remakable ku sameyn jiray ama dib u sameyn jireen. heesaha ninkan uu ku luuqeeyay caanka ah Soomaalidu yaqaanaan Bollywoodka ay dib u sameeyeen waxaa ka mid ah Tujizu Barihe Masti oo kale asaa qaaday. gamhaya kushiiheetu oo ku jirta filimkii Cartos oo yani sanjeedud hogaamiyaha ka ah asiga ayaa heesta qaaday. isla hees filimkaas markaan ka hadalna heesta oo ishq hees la yiraahdo waxaa jirto jaceyl ah oo sanjeedud iyo gabadha Manishkarole yani muuqaal ahaan ay sameynayaan asiga ku luuqeeyay. marka fanaankan heesa badan uu ku luuqeeyay remakable u sameeyeen waa jiraan Bollywoodka iyo heesa caadi oo asiga cod ahaan uu ku luuqeeyay oo aflaamta uu kaga soo muuqda saaxiibayaal. marka ninkan lagu magacaabo Nusrat Fatah Ali waxa uu ka mid yahay fanaaniinta ugu caansanaa ee Bollywoodka soo maray. asigana waxa uu geeriyooday sanadii 1997 weliba markii uu geeriyoonayo waxa uu hees ka qaaday rabaxtir filimkii caanka ah ee Haan Mere Biar Kiya Hai. hees kamid ah ayuu duubay inkastoo filimkaasi yani 2000 eeriyadeedii la daawada haddana waxa weeyaan hees ayuu u qaaday sida shaaca laga qaaday. duubista filimkaas ayaana xoogaa yara dheeraaday iyo sanka hoos bixin 97 hadduu geeriyooday filimkaasna 2000 eeriyadeedii la daawaday. waxa weeyaan maxaa qaldan asleeda laakiin filimka duubistiisu sanado badan ayay qaadatay. filimkaas ayuuna hees ka qaaday rabay saaxiibayaal. ninka lagu magacaabo Nusrat Fatah Ali. fanaaniinta kale ee muslimiinta ah ee diinta islaamka heesta waxaa ka mid ah saaxiibayaal oo aan soo qaadan karnaa ninka lagu magacaabo Lucky Ali ama Ali Lucky waxaa tirahdaba. fanaankan asigana wuxuu ka mid yahay fanaaniinta ugu caansanaa ee horaantii qarnigii 21 soo caanbaxay. heesa badan oo ku luuqeeya jiro Soomaalidu taqaano waxaana ka mid ah heesahaas oo kale heesta caanka ah Ekbalka Jina oo ay ku jirtay filimkii Kawana Biarihe waa heesta ugu caansan ninka qaaday. Natum Janunahu oo heesaas isla filimkaas ku jirta Lucky Ali ayaa ku luuqeeyay. fanaankan asigana wuxuu ka mid yahay fanaaniinta diinta islaamka heesta ee Hindi u dhashay saaxiibayaal. aabihiis ayuu ahaa Mahbuub ayaa la dhihi jiray 70-meeyadii ayuu caan ahaa. marka ninkan lagu magacaabo Lucky Ali asigana wuxuu ka mid yahay fanaaniinta diinta islaamka heesta ama fanaaniinta muslimiinta ah ee Bollywoodka ka xamaasha saaxiibayaal. fanaanka ugu dambeeya sheekadan taabanayso waa fanaanka codka macaan ninka lagu magacaabo Rahat Fatah Ali Khan. ayaa lagu magacaabaa ninkani. waxa weeyaan asigana Pakistani weeyaan oo Pakistan ayuu u dhashay laakiin Bollywoodka ayuu caan ka yahay. waxa uu ka mid yahay asigana fanaaniinta ugu codka macaan oo heesaha ugu badan ee Bollywoodka ku luuqeeyay. heesa badan ayaa jira ninkan uu ku luuqeeyay oo aan ka soo qaadan karno ama hees ku jirto kale filimka caanka ah ee Namaste London oo Akshay Kumar hogaamiyaha ka ahaa. iyo heesa badan ayuu ninkan ku luuqeeyay. weliba ninkan waxa weeyaan nin hees ooyin ugu keenay gabadha lagu magacaabo Deepika Padukone ayaaba hees yani ooyin loo keenay. hees la qaaday ayaaba ooyin loo keenay markii ay ka codsatay inuu xoogaa hees ay jecesho filimka Namaste London ku jira inuu dib u luuqeeyo mar xilli maslax yani ama barnaamijyadan caadiga oo yani ilmaha ama dadka talentigooda ay ku soo bandhigaan oo kale iyadoo ka qayb qaadanaysa ay ka codsatay heesta inuu u qaado. kadib markii hees xoogaa yara dhageysatay waxay ceshan weysay ilinta oo yani waa ay oysay. haddii aad rabtana inaad aragto muuqaalka yani iyadoo ooynaysana waatana oo aan isla daawano saaxiibayaal. क्या गाना गाया राहत भाई ने वाह. marka ninkan lagu magacaabo Rahat Fatah Ali Khan asigana wuxuu ka mid yahay fanaaniinta ugu caansan Bollywoodka ee heesta diinta islaamka saaxiibayaal.
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa cogtii aan kaga hadlaynay qaar ka mid ah fanaaniinta ugu caansan Bollywoodka ee heesta diinta Islaamka. fadlan haddii aad ka hesho muuqaalkeena like inoo saar, janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar, wixii raayad qabto commentiga hoos inoogu reeb, sii share gareeyo labadaas asxaabtaada. waan ku mahadsantahay waqtiga aad ku daabatay muuqaalkeena.